لكن مظاهرات عن شرعية سنين مظاهرات لو بربورنا الشرف كي يسمع الصوماليين مظاهرات قناع ستة لو بربورنا هنتيضة ما يلينه waa dibadbaxyo aad u xoogganaa oo xalay ilaa maanta gilgilayay magaalada muqdisho dadka ayaa ka caraysnaa dil loo geystay 2 qof oo rayid ahaa dilkan ayaa sida la sheegay waxaa geystay askari ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliyeed askarigan ayaa 2 qof dilay isagoo oo fulinaya bandow ay dawladdu ku soo rogtay habeenkii magaalada muqdisho intaas kadib dad aad u badnaa ayaa bilaabay dibadbaxyo rabshado watay kuwaas oo burburinayay gidaarada iyo goobaha bilayska sidoo kale dadka ayaa ku xoomay boor oo ku xardhanaa sawirka madaxweyne Farmaajo iyaga oo jeexjeexay kuwani waa qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo cabiraya dareenkooda waxaan ka shaqeeyaa dekada hal saacaan ku gaaraa daarusalaam al degana hal saac waa la gaaray xageed u socotaa hal guuri war hal saac dantaa ku gaarsiinaysa waxaan soo doonaa in la dilo xaqmiya Farmaajo nacasoo noqoy nacasnimadiisana waa ku dhacaaya laba gabdhood iyo hal wiil oo sal dhasheen ayaa xal la dilay ana meesha taagnaay afuraa gadanay gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Filish ayaa dadka u sheegay inuu ka xun yahay falkii dhacay ayna wax ka qaban doonaan waa kan madaxweyne Farmaajo oo ka hadlaya dibadbaxyo ka dhacay Muqdisho mar hore oo looga cabanayay dil ay ciidanku u geysteen dhalinyarada bajaajta wada laakiin mudaharaad aan sharciye sanayn mudaharaad lagu burburinayo sharafka iyo sumcadda Soomaaliyeed mudaharaad ganacsatada looga burburinayo hantidooda ma yeelayno arrintani saameyn ma ku yeelan kartaa taageeradii ay shacabka Soomaaliyeed u hayeen madaxweyne Farmaajo ummadda Soomaaliyeed wala taageersiin maxaa yeelay dawladdan dawlad fiican weeye madaxweynaha ka ahay